Soomaalidu dhaqan hore lahayd waxay oran jireen wiil 12 jir hadduu la ahaan waayo looyaanta diriir hadduu la celin waayo muslim ku soo galay hadduu loon ka rog waayo raganimo ludiis kuma jirtay leeyahay barogaada wiilku 12 sano markuu jiro wuxuu ahaan jiray hanaqaad dadkiisii dalkiisa hanta oo hooyadiisa aabihiis dhibtay la soo maray korrimadiisii ku bedela inuu u shaqeeyo ama ha xamaalo ama wax barto ama maxaan ku raasi kale xirfad kale la yimaado nin wax tar ah uu ahaan jiray laakiin hadda dhibaatada ugu weyn oo dhacday waxa weeye 30 jir inta halka ka tahriibay hooyadiisa ku soo korisay ama anjeelo ay dubto ama maxaan ku rahaa kabar ay fariisato u tahriib galo ay ku kallifo hooyadiis inay dawarsato dadka barido wiilkayga waa la haystaa magafa haysta dhibaato noocaas oo kale dambiil la wareegto oo halka ka inkaar galabsato laga yaabo qofka inkaar ku dhacdo oo badahu cunaan waxaan ka aaminsanahay tahriibtu inay tahay aafo xun oo dhibaato u soo keenta dhalinyarada Soomaaliyeed lana rabo in laga wacyigeliyo waqti walba iyo mar walba kumanaan kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku baaba'ay ku dhintay waxa runtii waxa weeye aad looga naxo waxaan garanayaa laba ka saddex qoys oo aan xasuusto heer ay guryahoodii ay deganaayeen ay u gadaanin ilmo tahriibay haddana duruufooda nolosha la daala dhacayo u malayso in isbedel nololeed oo damage aad weyn ay u geysatay wiil yar walaalkeeba iga tahriibay hadda sanad magafa haystaa wiilka mar walba waa la dirdilayaa fiideo wana la ku soo wacaya isagoo la dilaayo gacanta waa laga jabiyay ilkaha waa laga daadiyay mar walba isagoo ooyaya uu soo wacaya wuxuu leeyahay baaye una leeyahay hooyadiis way dhimatay aabiis waa xanuunsan yahay sariir buu saaran yahay marka lacagtaas ma awoodna 12,500 baa laga rabaa maamo baa ii timaaday iyadoo video mobilkeeda lagu soo diray wiilkeeda la dilaayo waxay tiri habeen walba video call baa laga soo wacay wiilkeeda la dilaayo waxaan la weydiiyay 18,000 oo lacag ah guri yar baan dhistay baa tiri hilibka baan qali jiray guri yar baan ka dhistay guriga waan iibiyay baa tiri hadda 10,000 baan bixiyay 8,000 baa ugu dhiman ma jiro wax istaahila inay naftooda u haligaan intii naftana khatar geli lahayn oo aynu badaha ku daadan lahayn waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed u soo jeedinayaa inaynu waddankeena dhisano tahriibkana inaynu ku bedelano inaynu waddankeena wax ka qabsano marka dhalinyarada waxaan ugu baaqi lahaa inay dalkooda aaminaan dalkooda ka shaqaystaan hal abuur la yimaadaan dalkooda dadkoodana aaminaan horumarkana ka shaqeeyaan